siyaasadda madaxa model dr xadan abdi ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس شيخ موسى ولا لها يا رئيس شيخ موسى ريب البلاء وسلامتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها ميتين ما أنت عين سوق وقابلني ميتين يدي هراء عين قبلني لمد معها وحوي روتي ميتين أمبا إيسو صباح عادي أهين وحو عادي كوهين وحانو غطلقلناي سدو هذا الكا ولالكينا دان يرتع أو شيغايي إنو نقضو ميتين جد حيان أو إنهاga وحالا يري جدي عاقي جد بي عدايساي مانتا عقتيدا هدانو صدقني بلبلا شيخ موسى وحانو ربنا لوا شيء او waxtar leh oo ina hagaaya inaynu sheegno ta ugu horeysa waa tilmaam aanu farta ku godayno wixii la qabanayo laba waa tusaale cad oon inii sheegayno runtii maanta waqtiga la joogo maaha waqti la isweydiinaya talo la isweydiinayo maaha taa waxaa soo afjaray oo albaabka ka soo xidhay nidaamka ayaa albaabka ka soo xiray maskaxda maanta nidaamka ee shaqaynaysa maskax runtii fayow maaha maskaxda maanta shaqaynaysa maskax ay ka soo baxayaan wax ummaddu ay u riyaaqdo oo ay ku diirsato maaha maskaxda maanta shaqaynaysa waa maskaxda garatay in dastuurka la taataabto oo shan kale oo sano ama 6 ama 10 sano kale kursiga lagu sii fadhiyo runtii maskaxdaasi maskax caafimaad qabta maaha maskaxda garatay siduu wiilkeeda yar inoo sheegayay wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo tiktokera ah oo runtii markaad bogooga aad gashid inay hadalka ka soo baxaya uunan ahayn wax caqliga galaya uu yahay uun doos iyo niikayn ahayn loo yeedho oo laga yidhaahdo kaalaya nala shaqeeya runtii maskaxdaasi maskax caafimaad qabta maaha runtii maskaxda maanta garatay in masiirka ummadda reer Jabuuti lagu dhiso waxa la yiraahdo afgaaleedka la société du spectacle runtii maskax caafimaad qabta maaha maskaxda maanta garan weyday waqtiga lagu jiro inuu yahay waqti garaguura runtii maskax caafimaad qabta maaha maskaxda maanta garan weyday in ay fidiso geel iyo gogolba oo tiraahdo maanta reer Jabuuti kiina dabada jooga iyo kiina gudaha joogaba isku yimaado si roon u wada tashada maskaxda taageero weyday maskax fayow maaha maskaxda garatay in ay sii wado siyaasadii ahayd ama aniga Isaacbe amba qasabaan kugu aamusin runtii maskaxdaasi maskax caafimaad qabta maaha walaalahay maxaan inaga rabaa maskaxda inaynu ugu jawaabno maskaxda waxayna laga rabaa inaynu u jawaabno de ma aamusayno ma inaynu aamusnaa runtii maya waxa weeye waqtiga la joogaa codkeena inaynu kor u qaadno oo si cad wax aynu u sheegno innakoodan isqarinayn oo nala garanayo codkeena waa inaan codka kor u qaadno oo u sheegno maanta waxaan leenahay fursad baynu haysanaayo waynu hadlanaa waa inaynu hadalno oo hadalku waa laba xoriyood waa xoriyad laba jeer inala siiyey waa xoriyad inaloo laba jibaaray marna ilaahay baa inoo maxay ahaydayna siiyey marna dastuurkeena ina siiyey oona dastuurkeena le droit
à l'expression baa la idhaahdaa marka xorriyadii naloo laba jibbaaray sideen aynu u isticmaaleen xorriyadeena waa inaynu hadalnaa tilmaamta ugu horeysa aan sheegayo waxa weeye maanta galabta wixii ka dambeeya qof walba hooyo kaste aabba kaste gabadh kaste wiil kaste oday kaste waa inuu barta twitterka facebooka tiktokka aalad kasta oo jirta waa inuu soo fadhiisto uu hadlo adigoo lagu garanayo hebel iyo heblaayo hebel lagu garanayo waa inaad hadashid oo wajigaaga qarinayn adigoo lagu garanayo xaafadda gashid waa inaad hadashid oo dhuumanayn adigoo lagu garanayo gurigaaga la garanayo walaalahaygii waa inaad hadashiin qarsooni iyo aamusnaan meesha inooma taalo waxayna nugu oolin maanta waxaa weeye wakhtigii la kala raacayay xaqa iyo baadilka la kala raacayay weeyaan runtii dastuurkeena in la taataabsado waa baadil cad oo lagu curyaaminayo isbeddel dab ah inuu inoo dhasho walaalahay marka maanta ma xaqa mise baadilka xaqa ayaanu leenahay walaalahay cabsi hadday jirto cabsi dhinaceena inay jirto maaha sababtoo ah xoolo ummadeedna maynu xayuubsan xaq ummadeedna maynu duudsan hadday cabsi jirto cabsi nidaamka halkiisa ayaa jirtaa taana waxaa caddaynaya maalintii afgembiga la waday ee dastuurka la afgembiyayay ciidankii dalka oo dhan baa banaanka la soo dhigay soo xaadir weyn yahayn indhihiina wayd ku aragteen soo maaha dee yaa laga baqayaa ninkaayni laga baqayaa nidaamku wuxuu garanayaa awooddiinuu garanayaa nidaamku wuxuu garanayaa cudurdiina ayuu garanayaa marka cabsi halkeena ma jirto ee cabsi waxay jirtaa halkooda ayay jirtaa cabsi walaalahay qof kaste oo rabaa isbeddel wuxuu rabaa runtii malab uu cuno ayuu rabaa malab inuu ku noolaado ayuu rabaa waxaa la yidhina runtii qof kaste oo malab doonaya waa inuu u adkaystaa qaniinyada shinnida waa inuu adkaystaa baa layidhi marka shinni la-aan malab lama helo xorriyad la-aana sharaf lama helo ee waa inala addoonsan haddaynu xorriyaddeena doonan weyno walaalahay inaad baasboor lagaa qaado waad inaad u aragtid qaniinyo shinni inaad mishaar lagaa gooyo waa inaad u aragtid qaniinyo shinni in lagu taxaabo xabsiga oo lagugu rido waa inaad u aragtid qaniinyo shinni walaalahay imise rag ayaa maxay ahayd baasboorka laga qaaday soo iskama noola imise rag ayaa runtii mishaar laga gooyay soo iskama noola ka ilaahay baa u ballan qaaday dee imise rag ayaa xabsiga loo taxaabay soo iskamay soo bixin oo iskama noola qaarkood soo kuma jiraan dee walaalahaygiiyo maxay ahayday inaku xor inakoo ah waa inaynu diidnaa isweydiiya ma waxaad isleedihiin awooddiina yar baa isleedihiin awooddiinu ma yara awooddeenna inaynu yaraysan sababtoo ah taariikhda dib marka loo milicsado imisa jeer baa la hayaa oo kaneeco yar boqor awood badan ay hurdow diiday runtii imisa ayaa la hayaa quraanjadu intay leeg tahay soo la garan maayo quraanjo itaalkayga tiyoo la garanayo isku ururtay mulac iska riixday marka waxaan leeyahay runtii ha isku ururno itaalkeena ha isku geyno hurdada ha u diidno nidaamka hana iska riixna baa leeyahay sow diyaar looma walaalahay tallaabooyinka aan rabno inaynu qaadno waa inay noqdaan tallaabooyin runtii taariikhda qormaysa ku reebta raad lama ilaawaana oo runtii isbedelo dab ah curisa walaalahay
hungurigu intuu leeyahay soo lama garanayo hunguriga duubnidiisa iyo yaridiisu intay leeyihiin soo lama garanayo bal ka warrama hunguriga wax ka weyn haddii la mariyo hungurigaasi dee ma mara hunguriga uu dilaacayaa soo maaha runtii dastuurkaa ay taabteen iyo hindisayaasha ay la soo maleegayaan ay la soo mutaynayaan waa inay kaga dhigno hunguri wax ka weyn maray oo hungurigoogu u dilaaco diyaar maa loo yahay diyaar soo lama aha waxaan ku soo xidhi walaalahay tallaabooyinkeenaasi caawa hadda heshiis baynu ku nahay caawa inaan la bilaabo walaalahay oo qof walba u soo fadhiisto tallaabooyinkaasi waxay inaga tirtirayaan ballanqaadyaal soo noqday oo weligood run laga sheegin vision 2035 dastuur lama taabsanaayo soo maynu maqli jirin alla yaraantii maxaa la maqli jiray beeni way orod gaaban tahay tun baa markaa la soo siinaya dee tun baan maanta soo siinay soo maaha waa tallaabooyinkaasi runtii waxay inaga tirtirayaan hadallo iyo ficillo iswaafaqsaneen oo xuubka ka saaray runtii kalsooni wixii la odhanayay tallaabooyinkaasi waxay inaga tirtirayaan Cameroon maanta waxa ka dhacay soo lama socdo waa lama socdaa soo maaha Cameroon maxaa ka dhacay 29 jir markuu kari waayay inuu miitingyada dhex imaado in sawirka la qaado oo kursiga la dhex dhigo ma been baa taasi tahan ka hortagna walaalahaygiyo diyaar soo lama alxamdulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin